hambalyeynaynaa kooxda dhalinyarada ah oo magacooda la yiraahdo halgan oo muddo dheer soo halgamaysay koobkana ku qaaday magaalada la yiraahdo Twin City stateka Minnesota wadankana uu yahay Mareykanka October 8 2011 inay idinka aad qaadaan koobkan waxaa sabab u ah coach oo inaba aan caadi ahayn Harbi waaras ku mahadsantiin aad iyo aad run ahaantii waa markii ugu horeysay xafladan ka qayb galo aan ka hadlo intaan magaaladan ku noolaa waa meeshii ugu koowaad aan ka istaago oo aan xaflad waa meeshii ugu horeysay sababtuna waxa waa dhalinyaro aad iyo aad mustaqbal u leh sida aan u arkay waxa waaye mustaqbal bileen waxaan jeclahay dhalinyaradina kubad kalima waxbarashadana waa number 1 marka waxaan idin sheegi lahaa in aad ku dadaashaan xagga waxbarashada markaad heerka noqotaan banoonigana waa imaanaya kubad waa la dheelaa laakiin waxay u badan tahay inaad sida had u dhashin ciyaar wanaaga wax kasta waa la isku diga magaalada waa laga sameeyaa koobab waa jiraan wax kasta waa jiraan Harbi walaalkeen aad iyo aad u mahadsan yahay run ahaantii wax fiican buu sameeyay waxa ugu fiican oo la sameeyay waa dhalinyaro sport wax fiican baa ka dhasha wanaag baa ka imaada marka waxaan idin rajaynaynaa ku mustaqbal lahaad inaan noqotaan kooxda waad mahadsantihiin asxaabta ragii hore isku keenay meesha inay ka soo qayb galaan waxa fadhiya Najiib Bashiir baa jooga marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa dhalinyarta aan ciyaaraha meeshan ugu qabanqaabiyay u qabtay oo sharaf yeelay oo ana sharaf sidoodu u abaalgudayo waxaa kamid ah maanta wish inay wada joogi lahayn dhalinyartii laakiin wada shaqeynayaan waqtiga ku yaraaday laakiin waxa jooga kabtaanka teamka Faisal marka run ahaan ciyaarihii la sugayay amba ciyaartii wanaagsaneed ee la wada sugayay wuxuu ahaa ciyaartii xalay meesha ka dhacday halgan iyo midnimo ciyaaraha haddaan iga waramo ciyaarihii ugu horeeyay kuwii ugu dambeeyay si wanaagsan oo ka rajeynayay iyo wanaag xaq door iyo walaaltinimo ee ciyaarihii ku dhamaadeen oo dagaal dhicin la saayin la xumayn because waxa jirta anoo ciyaaraha qaarkood arbitro ka ahaa referee ka ahaa still iyagu ma yeerayaan referee waxay leeyihiin macallin das waa sharaf aad yeesheen aad baa ugu mahadsantiin marka gamekan xalay dhacay midnimo waa team caana maanta waxaan ku farxay ciyaalka yaryariiska ay soo safreen ay keeneen waxa kamid ah Maxamed Yare very intelligent iyo ciyaar wanaag magaalada maanta waxaan arkay dhalinyaro badan oo qarsoonayd laakiin hadda soo baxday soo future-kuna waa inaka ahoobani gargaarina suu ugu sheegay geedi waxbarashada muhiima oo very important midnimo congratulations ciyaar wanaag discipline perfect then laba team markay ciyaarto team Mbaraya so halgan congratulations horta aad iyo aad baa u mahadsantihiin xalay labada team oo isugu yimid finalka midnimo iyo halgan wali annagoo waxaan taageeraynay kooxda halgan dhalinyaro badan aqaana aan banuun isla ciyaar jirnay waxa kamid ah Cabdiwahaab marka aad iyo aad aan idinku habalneenayaa dhamaantiin horta waa wal salaamantiin waxaan idin rajeynayaa mustaqbal fiican iyo aayatiin fiican qof walba ciyaartooyina wuxuu u baahan yahay macnaha ixtiraam inuu ixtiraamo ninka kale walaalkiisa ah
marka dee kulleyna dhalinyaro yaryar oo hadda soo kacayatiin ubax yar oo soo kacayo marka waxaa loo baahan yahay maskaxdiina inay xisaabtanto mustaqbalkiina iyo aytiinkiina ka fikirtaan marka hore ilaahay baa mahad iskale meesha suuqa ay keenay marka kale aniga wax barooni aniga ma hadlayo laakiin waxaan igala hadlayaa wax mar walba oo soo noqdo oo kamid ah qaybta salaada koo waa very important aniga hal qiso bisan ii sheegay oo nigu soo gaabinaya salaada waxa qofka bini'aadanka qof walba anficaysa kan yar iyo kan weynba qofka bini'aadanka waxa waaye wax walba oo adduunka uu ku joogo waa la weydiinayaa adduunka inta yartaana waa la weydiinayaa marka weynaatana waa la weydiinayaa waxaa jirtay wiil qiso waxay ka dhacday imaaraadka carabta wiil waxaa jirtay reerkiisa aad bay ugu fiicnaa reerkiisa aad bay u jeclaayeen wuxuu dhiga jiray iskuulka waligiisa garaadada ugu fiican ee uu keeni jiray maalin ayaa waxaa dhacday wiilkii waxaa u timid geeridii baa u timid inteenaan joogto qof walba waa dhimanaya qof aan dhimanayn malaha maalin marka waxaa dhacday geeridii baa u timid ninkii wuu dhintay wadaaddaa loogu wacay meeshii wax ila aasaa la rabay qabriga markii la qoday waa qiso run ah qabriga markii la qoday qabriga waxaa ka soo baxay mas intee la egtaa mas aad u weyn markaasaa waxaa dhacday in la yidhaahdo qabriga hala duugo mid kale hala faago mid kale hala faagay isla midkii la faagay isla maskii laftirkiisa ka soo baxay waxaa loogu wacay askar baa loogu wacay waa aragteen dhammaantiin waa daawataan tiifiyada masaska oo kale marka waxaa jirto beresaan loogu qabto askar baa loogu wacay askarta markii loogu wacay birtii maska saana loogu qabtay qabri saddexaad la qoday intii qabriga saddexaad la qoday markii saa loo geliyay maskii ninkii wuu ka soo fakaday intee dhammaanteen waxaa is weydiisin markii ugu horeysa qabriga la qoday oo maska ka soo baxay waa macquul maska qabriga ku jiray qabriga labaad markii la qoday isla maskii laftirkiisa wuxuu qabriga uga soo baxay waad garan kartiin oo malena kulligiina maskaas qof walba ilaahay calafkiisa wuxuu uga dhigay inuu cunugaas u cuno qabriga saddexaad markii la qoday maskii ninkii uu ka soo fakaday wallaahi waxaa dhacday maskii isagoo qabrigii ninkii la dugay oonsa dhammaanin inuu maskii qabrigii ninkii uu ku dhex cunay marka dhammaanteen wallaahi ninka salaada ka tago saasa u dambayso salaada waxaan ii sheegayaa qof walba waa anficaysaa salaada iska meel important waay baroon waa la ciyaari karaa ceeb ma ah laakiin maaha baroon inaa adduunka israacsin adduunka waxa ugu xun qofka bini'aadanka adduunyo israaciyo oo laakiin xagga diinta iyo salaada aan israacsin marka kulligiina aniga waxaa wana cilmi la miihi kole waxaan dhaamana ma laha laakiin aniga waxa meesha u soo istaaga waxay ahayd barooni ha laga hadlay laakiin aniga waxaan xasuusinayaa salaada qiimaha ee leedahay intaasaan ku soo gabeynaya waana maasantiin qeyraan ii rajeynaya assalaamu calaykum waxaan u wici doonaa insha allahu tacaala coachka oo tournamentiga cabdiraxmaan FC Faynus oo qaatay coach of the tournament marka ku soo dhawo insha allahu tacaala كوش عبد الرحمن وحويان آمين honestly وحويان عياره صعودة دنيار عصب سوقيي for the first time every night قبوقا أجرا يعيارها جوقي وناجيني this is the courage ونقدر ما أنت coach of the tournament thank you عبد الرحمن aad buu mahadsan yahay coachkaas waxaan hadda inoogu xigi doonaa the best goalie will be Tuju oo u ciyaara kooxda Taju oo u ciyaara kooxda Halgan walaalkeen oo qaaday MVP magaciisana waxa la Mahdi wuxuuna u ciyaaraa kooxda la dhaho Halgan aad baad u mahadsantahay Mahdi ciyaar wanaag ah samaysay waxa inoogu xigi doona haddana midnimo kabtankeeda la dhaho Faisal أيوة فيصل
waxaan ugu xigi doonaa waxaa first place galay halgan waxaana la siin doonaa insha Allah taala koobkii ugu dambeeyay wabillahi tawfiiq Captain Yasin